aan wax badan kaaga sheegi doonaa astaamaha ruuxa ku jecel ah ku dareemi kartid iyo mar walba sida quruxda badan uu kuu qadari doono. intaan u guda gelin warbixintan waxaad ka daawanaysiin barta YouTube-kan ku leenahay Socdaal 24 iyo aaladdeena TikTok-ga Socdaal 24. qofka ku jecel mar walba waxa uu kula dhaqmaa si aysan dadka kula dhaqmin. mar walba waxa uu ka ilaaliyaa xanuun walba oo qalbigaada gaarayo. sidoo kale mar walba waxa uu ku sawiraa farxadda iyo dareen aan dhammaan sidii uu ku sii lahay. mar walbana waxa uu jecel yahay dhoola cadeyntaada iyo agjoogaada. dadka kale waa ugu qiimo badan tahay waana ugu sharaf badan tahay. marka dib uu ku soo gaaro waxa uu kaaga murugoodaa si aysan dadka kale kaaga murugoon. mar walba qalbigiisa waxa daqiiqad walba iyo saacad walba iyo goor walba u sawiran xanuunkaadi uu ku haayo. qalbigiisa ayuuna mar walba ku weyn yahay. waxa uu mar walba ka fikirayaa xanuunkaada sida uu noqon doono nolol iyo geerina sida aad noqon doontid. kan ku jecel waxa uu yahay qofka sida xad dhaafka ku jecel. sidaas ay tahay mar walba waxa uu jecel yahay farxadaada iyo agjoogaada. aad ayuuna u xiiseynayaa mar walba agtaada inuu joogo. saacad walba uu ka maqan yahay waxa uu ku fikiraa haddii mar uu adigu ku heli lahay farxadda naftiisa sida ay noqon lahayd iyo dareenkiisa siduu isku bedeli lahay. way adag tahay qof ay jeceshahay marka uu ka maqan yahay, laakiin waa ay qurux badan tahay mar walba oo fariimihiisa ay ku soo gaaraan iyo dhawaqa taleefanka iyo erayada macaan qofka ay jeceshahay mar walba uu ku dhahayo. laakiin qofka sida dhabta ku jecel mar walba wuxuu jecel yahay la jooggaada iyo aragtidaada. 4 qofka ku jecel mar walba wuxuu xiiseeyaa goobaha damaashaadka iyo dalxiiska inuu ku geeyo si aad neecawda quruxda badan ee halkaas taal indhaha ugu soo doogsatid. waxa uu sidoo kale mar walba u xiiseeyaa inaad tahay qof qurux badan, sidaas oo ay tahay quruxdu ma ahan mid jir ahaan ee waxa uu jecel yahay mar walba dabcigaada quruxda badan iyo qalbigaada iyo sida quruxda badan aa ula hadlaysid. taasina waxay keenaysaa noloshiina inay horumar fiican sii gaarto, jaceylkiina uu soo siyaado. waxa ugu quruxda badan ee mar walba ay ku riyoodaan labada qof ee sida dhabta isku jecel waxay tahay markii ay helaan wax indhaha lagu doogsado, taasi oo ah oolaad qurux badan markii reerka ama guriga uu ku soo biiro. waxay tahay mid kale oo noloshooda ee aad ugu farxaan mar walbana waxay jecel yihiin indhaha inay ku doogsadaan. caruurtu waxay yihiin kuwo aad u qurux badan, sidaas oo tahayna qalbigooda ayaa sidaas oo kale u qurux badan. tan ugu dambaysa waxay tahay labada qof oo isjecel waxay yihiin kuwo mar walba danta iyo duruufta iyo xaaladda ay ku nool yihiin mar walba iskugu dulqaato. sababtoo ah mar walba waxaa jiraysa xaalad adag. waxaa jiri karta maanta in ninka uu haysto dakhli fara badan berina uu wey karo. inkastoo gabdhaha ay yihiin kuwo dabcigooda aad u qurux badan mar walbana qofkay jecel yihiin ugu dulqaataan. intaan ku kulmi doono warbixin noocan oo kale waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Socdaal. sidaas nabadgelyo. barta ka daawanaysiin waa aaladda YouTube-ka ku leenahay Socdaal 24 iyo barteena TikTok-ga Socdaal 24. saaxiibayaal nabadgelyo iyo nooli kulanto xiiso leh.